السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعانا wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Cabdi Khayr soo dhawaada waa qayb labaad oo aan uga hadli doono aasaaska fikirka guuldarrada muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa 5 qodob qofka joogteeya inta badan 5tan qodob wuxuu u dhow yahay inuu ka fogaado wadada guusha una dhowaado wadada guuldarrada intaan muuqaalka u guda galin fadlan janaalka subscribe inoo saar muuqaalka inoo la galay si uu gaaro saaxiibada sidoo kale u wanaagsan qaybta hoose comment inoogu reeb wixii fikraad haydid number 1 xil iska saar la'aanta noloshaada noloshaada markaad xil iska saartid waxaad noqotaa qof guuleysta xil iska saarista noloshaada waxaa soo gelaya qaybo badan oo ka mid ah sida caafimaadka cilmigaaga iyo qaybo kale oo ka mid ah noloshaada markaad caafimaad qabtid waxaad u baahan tahay inaad cilmi leedahay markaad cilmi leedahayna waxaad u baahan tahay inaad caafimaad qabtid labadu waa isku xiran yihiin caafimaadkaada ka taxadar cilmigaagana ka taxadar cilmigaaga markaad ka taxadartid oo aad hubisid cilmigaaga waxaad noqon doontaa qof nadiifa oo iskontaroola waxaad noqon doontaa qof rabbigiisa yaqaana cilmigaaguna yousan noqonin mid adduunyo bis ah cilmigaagu ha noqdo cilmi diiniya adduunyada iyo aakhirana wax ku anfaca cilmiga diiniga markaa baratid aakhira iyo adduunyadaada waa taqaanaa maadigana baro ayaa lagu yidhi diinigana baro diiniga xoogga si fiicanna u saar diiniga haddaad ka tagtid maadiga u carartid waxaad noqon doontaa qof adduunyo oo kaliya u go'ay aakhiradaadiina waad ilowday waxaadna u badan tahay qof khasaaro ku sugan mar walba oo cilmigaaga siyaado waxaa kuu siyaadaya waaye aragnimo caafimaadkaada ood ka taxadartana waxay u badan tahay in noloshaada qaybo badan oo ka mid a ay noqoto mid heer sare ah cilmigaaga haddii uu siyaado waxyaabo badan ayaa kuu fududaanaya xil iska saari la'aanta noloshaada waxay soo dedejisaa guuldarrada noloshaada oo dhan xilka haddii noloshaada aad iska tiirisid oo meel iska dhigtid waxaad noqon doontaa qof guuldarraystay haddii aad noqotid qof noloshiisa ka carara ama dayaca caafimaadkiisa dayacay noloshiisa kala dayacay naftiisa aan isagu daryeelin waxaad noqon doontaa qof nafsadiisa gabay oo dayacay haddii aad doonaysid inaad maado barato waa inaad maadada xoogga saartaa haddii aad doonaysid inaad caafimaadkaaga hagaajiso inaad caafimaadkaaga xoogga saartaa haddii aad doonaysid inaad maal tabcatid waa inaad maal xalaala tacbatid oo maalkaasaad ku tacbaleed nadiif wadada nadiif xalaala u martaa haddii aad cilmi kala doonaysid inaad kororsatidna waa inaad kororsataa oo cilmiga diinigana waa inaad kororsataa si fiican waa inaad iskaga hubisaa oo aakhira iyo adduun waa inaad ku dadaashaa qofka nafsadiisa markuu hubiyo ayuu kale ku daraa nafti gabe naf kale ma kalkaalo xil iska saari la'aanta noloshaada ayaa keenta guuldarrada ugu weyn ee number 1 ka ah guuldarrooyinka isdaba yaalla ee noloshaada kuwaa oo aas-aas u ah inaad noqotid qof nolosha ka dhaca haddaba waxaad u baahan tahay inaad noqotid qof guuleysta si aad u guuleystid waa inaad noloshaada xil iska saartaa lambar 2 quusta degdega micnaha qofku inuu hore ka quusto inuu hore iska dhiibo inaad noqoto qof hore iska dhiibo oo mar walba hore ka quusta qofku markuu quusto oo noloshiisa ka quusto waxaa kow ku dhaca moral dilaac niyad jab inuu qofkan noqdo qof xanuunsan cudurro badan baa ku dhaca wuxuu noqdaa qof noloshiisa inteeda ugu badan noqdo qof dhulyaal ah qof waqti badan ku qaata cudurka laguu sheegayo maahan midka jirka inta ku dhaca aad sariirta halid cudurka laguu sheegayo waa midka maankaaga adigoo socda oo nool oo ordi karaya soco karaya magaalada maraya aad noqotid qof aan waxba qabsan karin ficil la tartami karin noqon karin qof aan maanta hal abuur lahayn eberka haddaad noqotid qof fashila oo qof micnaha quusta degdega ah laguma farin ilaahi subxaana watacaala wuxuu ina amray inaanan quusan ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay addoommadeyda iyaysa raxmadeyda ka quusan laa taqnaduu min raxmatillaah naxariista ilaahay iyaysanba ka quusanba ilaahay raxmadiisa haddaan ka quusanno waan halaagsanay raxmadda alla haba ka quusan adduunyo yar oo ad wax yar si kaa noqdeen haba u quusanba dembi weyn haddaad geshid ilaahay u toobadkeen dhab ah la imow waa lagaa toobad aqbalaya ilaahay waa qafuururaxiim sidaas darteed adduunyadan kasta yartaa oo kaa halaawday haba isku dhibin la imow falcelin nadiifa dib iskugu noqon noloshaada hagaaji waxaad sameydaa horukac
waxaad sameydaa sare u kac, waxaad sameydaa dib cusboonaysiin noloshaada, horumari si toos ayadaa isku beddelayso. Adiga ayaa arki doontid adigoo noqday ruux si nadiif ah noloshiisa u horumariyay oo guulo waaweyn gaaray. Number 3, ka cabsashada hoos u dhaca. Inaad noqotid qof ka baqaya inuu hoos u dhac sameeyo. Mar walba oo aad maagtid kor u kac samee, inaad istira Allah ilaahay war hawsha haddaad sameydid ama aad hoos u dhac sameydaa. Waxaan haddaad sameeyay ama kor u kac sameyn waayaan ama mar walba hoos u dhac sameydaa. Talaan waxaad tahay arday, waxaad tiraahdaa maadadan aad diyaarinayso ama hoos u dhac sameydaa ama waxaan mar walba aad sameynaysid ama sidii hore timaadaa ama imtixaankan aad ku dhacdaa. Mar walba ood sameyn maagtid shaygan inaad ka baqdidba hoos u dhac. War shay walba markaad ku fail garowdid waxaad ka baran doontaa cashir. Maanta waddadaad martid waxaad ogaan doontaa waxay waddadani ku wanaagsan tahay, luuqyada ay leedahay, qodaxaha yaallo, siday u toosan tahay, siday u qalloocan tahay, meelahay ka dhowdahay in loo maro iyo siday ugu habboon tahay, inay dheer tahay, inay dhowdahay, waxaasoo dhan ayaa baran doontaa. Waddo ma martid ilaa waxaa lagu tusaa sida ugu habboon ee loo maro. Marka ogow shay walba ma lagu barayo ilaa in lagu marsiiyo maahane. Qofka markii uu shayga baranayo waa inuu qaadaa waddadiisa. Shay walba wuxuu leeyahay aas-aas. Caalimka weyn aad arkaysid wuxuu caalim ku noqday uu ku soo gaaray darajadan Ilaahay ku soo gaarsiiyey wuxuu soo maray waddada ardayga maanta rajeynaya inuu noqdo caalimkaas oo ah inuu xeer soo ahay, inuu subax walba ka lihi jiray, inuu habeenna soo jeedi jiray, inuu buug iyo qalin sii jiray, inuu muddo badan kitaabo akhri jiray, inuu soo jeedi jiray, inuu wax badan diyaari jiray, inuu wax badan akhri jiray. Marka mar walba waa inaadan ka cabsan hoos u dhac. Cashirka akhrisid waa lagula soo celin, shaqada qabatid waa lagula celin, mushaharkaaga laga yaabaa mararka qaar in hoos loo dhigo, darajadaada laga yaabaa in hoos loo soo dhigo, laga yaabee waxyaabo badan oo ku haminaysid in ay kaa filgaroobaan. Waxaa laga yaabaa mararka qaar in meel ganacsi oo haysid inay kaa gubato, lacalahu khayr. Wax walba oo aad rajeynaysay ayaa laga yaabaa inay kaa nusqaamaan. Waxaa macquul ah in khayr kugu jiro. Marka isdeji, wax walba Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala u tala saaro. Waxaan aad weynaysid waa macquul in khayr kugu jiro. Wax ka barako badan oo ka khayr badan ayaa Alle kugu beddelayaa. Number 4, ka fekeridda ama ku mashquulidda waxa ay dadku dhahayaan. Mar walba ood noqotid qof ku mashquula ama qof ka fekera waxyaabaha ay dadku dhahayaan ama ay asiga ka sheegayaan ama ay shaqadiisa ka sheegayaan, waxaad noqon doontaa qof aan marnaba horumar gaarin. Dadka aad arkaysid guulaha gaaray mar bay ahaayeen dad la dhaleeceeyo, dad la caayo, dad lagu tilmaamo dadaan guuleysan karin, dad lagu tilmaamo dadaan waxaan macquul ahayn sameynaya. Dadka qaar markay guuleysanayeen oo waddada guusha marayeen la dhahayo waa wax waalan, waxaan miyay sameyn karaan. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu tilmaamaya nin waalan markii uu ummadda dhahaya Ilaahay ka cabsada, Alle xaq loo caabudo ma jiro ilaa Allah mooyaane, waxaan sanabyadan ka taga. Mar walba oo aad xaq ku taagan tahay ama aad doonaysid inaad qaadid waddadaada guusha, waxaad noqon doontaa qof la kulma caqabado, caayo iskugu jira, dhaleeceyn iskugu jira, rafaad iskugu jira, dhibaateyn iskugu jira. Noloshaada ayaa lid la kulmi doontaa. Ma noqon doontid qof bilaa caay ah, bilaa lid ah, bilaa micnaha rafaad la'aan ma noqon doontid. Mar walba waxaad noqon doontaa qof far leh lagu soo fiiqaayo. Ma aha noqon doontid qof la iska amaano. War hebel waa nin wanaagsan, waa nin maasha Allah. Nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la yiraahdo ninkaas ka warramo waa nin aamin ayay dhahayaan. Haddana markuu xaqa u sheegay oo runta u sheegay, Ilaahay xaq lagu caabudo ma jiro ilaa Ilaah mooyaane, uu ku yiri waxay dhaheen ninkan waa nin waalan, ha laga cararo ayay dhaheen. Carruurtii iyo haweenkii ayay ku direen. Marka mar walba waxaad ogaataa haddaad waddada guusha qaadid ama adigu aad noqotid qof waddo cusub la yimaada, waxaad noqon doontaa qof la kulma dhaleeceyn. Mar walba nafsadaada horumari, waxaadna noqotaa qof dhaleeceyn dadka aan marnaba waddadiisa aysan hor istaagin. Number 5, dayacaadda salaada iyo dikriga Allah. Qofku wuxuu liibaanaa markii uu noqdo
qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran kullu shayin bacda asalaa dayacaadda salaada iyo dikriga Allah oo mar walba agtaada ku batana oo aad micnaha mar walba oo ka fogaatid salaada, soonka, sadaqada, dikriga Allah oo aad mar walba dayacdid oo aad noqotid qof micnaha aan ku dadaalaynin oo adduunyo la u cararaya waxaad ogaataa inaad tahay qofka koowaad ee guul darrada u saaxiibka ah labada daaroodba daarta aakhiro iyo midda adduunba. Adduunka waa laguu soo hormarinaya. Maxaa lagugu soo hormarinayaa? Haddii lagu siiyo adduunyo, waxaa lagaa dhigayaa qof baraka la'aan ah. Wax walbo lagu siiyo barakada ayaa lagaga qaadayaa. Dikriga Allah oo aad badisid, wax yar oo lagu siiyaa lagugu barakeynayaa. Dikriga Allah oo aad badisid, wax badan oo lagu siiyaa lagugu barakeynayaa. Salaada Allah oo aad ku dadaashid, wax yar iyo wax badan oo lagu siiyo ayaa lagugu barakeynaya. Cilmigaaga ayaa lagugu barakeynaya. Maalkaaga ayaa lagugu barakeynaya. Awlaadada ayaa lagugu barakeynaya. Caruurta, xaasaska, wax walba ayaa lagugu barakeynaya. Bal deganaansha Allah ayaa kugu siinaya subxaanahu wa tacaala. Bal fahamkaaga ayaa Allah subxaanahu wa tacaala kugu siyaadinaya. Salaadaada iyo soonka iyo sadaqada iyo dikriga Allah oo mar walba oo aad hagaajisid waxay soo dedejisaa guusha aakhiro iyo midda adduun oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wadadii aad ku gaari lahayd kuu fududeeyo. Dayacaaddoodana waxay soo dedejisaa guuldarradaada. Mar walbana waxaad saaxiib u noqon doontaa guuldarrada joogtada ah haddii aad tahay qof dayacaya salaada iyo dikriga Allah. Badi si aad u noqotid guuleystaha aakhiro iyo midka adduun dikriga Allah. Waayo qofku wuxuu guuleystaa markuu noqdo qof Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran. Ku xirnaaw oo Allah subxaanahu wa tacaala badi dikrigiisa waad guuleysan doontaa. Waan hubaa inaad guuleysanaysid haddii aad Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran tahay. Marnaba ma khasaari doontid. Subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha illa Allah wallaahu akbar oo tiraahdid ayaa Allah subxaanahu wa tacaala agtiisa darajo weyn ku helaysaa. Sallallahu calayhi wasallam oo tiraahdid ayaa Allah subxaanahu wa tacaala agtiisa lagugu xusayaa. Bal qiyaas darajada aad Allah subxaanahu wa tacaala agtiisa ka helaysid. Ibni aadan agtiisa in lagugu xuso iyo Allah subxaanahu wa tacaala in agtiisa lagugu xuso yaa darajo iyo qiimo badan. Allah agtiisa in lagugu xuso ayaa darajo iyo qiimo badan. Naftaada iyo nafteyda waxaan u dardaarmayaa cabsiga. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.